kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhowaada halkan waa durdurka wararka waxaan idiin soo gudbinaynaa mucjiso la yaab leh oo lagu arkay ciidankii iyo saraakiishii qaybta ka ahayd xasuuqii reer laascaanood loo geystay mucjisadaasi maxay tahay faahfaahinta inta barnaamijkan aynu ku guda jirno ayaan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa inta warbixinteenna aynu markaasi ku guda jirno ciidamada difaaca Puntland oo saacadihii ugu dambeeyay sameeyay howlgallo xooggan waxaan idinla wadaagi doonaa rag markaasi cusub oo laga qabtay kooxdii ku sugnayd ergagixisada ahayd dhulka buuraleyda ah ee calmiskaad raggan waddamada ay u dhasheen ayaan idinla wadaagi doonaa iyo goobaha markaasi laga soo qabtay sidoo kale ciidanka difaaca Puntland oo kulamadii ugu dambeeyay yeeshay saraakiishii hogaaminaysay iyo nooca howlgalka ugu dambeeya ee lagu soo afjaraya kooxdan ee markaasi la dejiyey ayaan idinla wadaagi doonaa sidoo kale daawadayaal inta warbixinteenna aynu ku guda jirno intayna guda gelin marka koowaad soo dhowow muuqaalkan laygare sidoo kalena sheergare oo la wadaag saaxiibadaada naguna soo biir haddaad nagu cusub tahay waa hagaag muxuu yahay ama maxay tahay mucjisada ka soo ifbaxday ee lagu arkay saraakiishii hogaaminaysay xasuuqii reer laascaanood ee SSC maxaase raggan maanta lagu abaalmariyey oo Somaliland xukuumadda haatan talada haysta ay ku abaalmarisay magaalada Hargeysa maanta waxaa isugu soo baxay boqolaal odayaal saraakiila oo laakiin hadda naafo wada ah dhammaantood oo howlgab u badan waxay isugu jiraan qayb howlgab ah iyo qayb naafa saraakiishan oo qayb ka ahayd say afkoodaba ka sheegteen howlgalkii calmi markaasi reer laascaanood lagu xasuuqay yaa waxay sheeganayaan in ay howlgalkaasi qayb ka ahaayeen duulaankaasi qayb ka ahaayeen ee lagu dhibaateeyey reer laascaanood oo hooyooyin badan iyo carruur badan iyo waayeel badanba ay ku leedeen iyo dhallinyaraba odayaashan oo sheegay in ay hadda naafa yihiin yaa waxay qirteen inay qayb ka ahaayeen dulmigii lagula kacay markaa reer laascaanood haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa muuqaalka iyagoo cabanaya oo ka cabanaya in xukuumaddii Somaliland ay xuquuqdoodii lumisay oo ay iska ilaabeen si cad ayay u sheegayaan in haba yaraatee wax xuquuqa aan la siin la dayacay taa beddelkeedna xoolahoodii xuquuqdoodii lasaga raaxaysanayo waa say hadalka u dhigeen afkooda waxay ka sheegayaan waxyaabaha cajiibka la yaab kale waxaa ka mid ah in ay qayb ka ahaayeen dadkii ku soo naafoobay duulaankii gobolka Sool lagu qaaday ee reer laascaanood lagu dhibaateeyey inkastoo iska difaaceen oo si adag iska difaaceen oo raganimo leh waxay marka leeyihiin maadaama aan hawshaas qayb ka ahayn oo ku soo dhaawacnay oon lixaadkeenni ku soo weynay badankeen Somaliland wayna dayacday bannaankaana la dhigay waana laga tegay hadda marka maadaama la dayacay xaruntii wasaaradda yay isa soo dhoobeen wasaaradda gaashaandhigga ee Somaliland afaafkeeda hore iyo bannaanbax ku qabteen maanta iyagoo ka cabanaya in xuquuqdoodii la duusiyo dulmiga dhibaatadu leeyahay bal fiirsada nimankaas dad walaalahooda oo muslimiin oo masaakiin ay ku duuleen dhibaatadii ay ka dhaxleen waa midda maanta qabsatay ee keentay in xitaa mushaaraadkoodii la siin waayo maanta waxaa isugu darsamay inay naafa yihiin
in dowladdii ay u dhinteen u dagaalameen ay mabda'eeda aaminsanaayeen maanta aysan waxba siinayn qabiil iska badbaaba warkiis dhibaatada nimankaas ee lugaha la galeen waa midda halkaa dhigta waxyaabaha la yaab kale maxaa ka mid a taliyihii guud ee ciidanka somalilan wuxuu sheegay in nimankaas aysan ka mid ahayn ciidanka qaranka somalilan waa siduu hadalka u dhiga ka mid maba aha yidhi nimankaas waa niman u shaqeeya ayuu yidhi wasaaradda gaashaandhigga ee waxooda ha u raadsadaan si cad ayuu u sheegay qoraal u soo baahiyey hadda waa meelna kuma tirsana nimankaas isku tuurtuur xaggaasay ahaayeen iyo xaggaasay ahaayeen iyagiina waa cabanayaan waxay leeyihiin war sidaa hana loo dhaamo sida hadda aan ku sugannahay xal maahane bal hana loo dhaamay taagan yihiin waxa weeyaan halkan maanta wasaaradda gaashaandhigga wax galaya ma jiro ilaa iyo 24 saacadood ilaa iyo arrinka yaga yahay waa qoladii lagu magacaabayna waxaan ka qabanaynaa mushahar ma hayno oo madax ma lihin oo maamul ma lihin aniga madaxweyne cid loo dhigta ma jirto haddaan halka uga gudubno nimankaas naafada ah innaga kama xumin kumana diganayno maadaama dad da'ah oo hadda dhibaato ku sugan ay yihiin qof kasta wuxuu geystaa ka horreeyo laakiin waxaan iftiiminaynaa dulmiga inuu soo degdegayo haddii aadan ka baaqsan waayahay haddii aynu aadno gobolka bari ee puntland ciidamada difaaca puntland ayaa sameeyey howlgallo aad u culus saacadihii lasoo dhaafay howlgalladaasi waxaa lagu soo qabtay ninkan sawirkiisa idiin muuqdo oo watay bac ay raashin ku jiraan dhalasho ahaanna waxa uu ka soo jeedaa waddanka yeman ninkan waxaa laga qabtay agagaarka boosaasaa laga qabtay waxaana la tuhunsan yahay in uu markaasi xiriir la leeyahay kooxda argagixisada ay ka dagaalamayso dhulka buuraleyda ah ee calmiska baaritaan ayaa hadda ku socdo kama hordhacayno sidoo kale ciidanka difaaca puntland waxay yeesheen saraakiisha hogaaminaysa iyo wasiirka amniga ee puntlandba kulan xasaasiya oo ka dhacay deegaanka dhaada oo ka mid ahaa deegaanadii laga xoreeyey kooxda daacish kulankaasoo isugu jiray mid guubaabo iyo ducaa iyo sidoo kale ka tashiga howlgalka sii soconaya wejiyada badan leh sida degdega ah loogu soo afjari lahaa waa sida uu qorshooya kulankaas waxaa loogu duceeyey intii ka dhimatay markaasi ciidanka difaaca puntland ee geesiyaasha ah muddadii dagaalka uu socday waa loogu duceeyey iyo inta dhaawaca waxaana lagu dhiirigeliyey saraakiisha hogaaminaysa howlgalka in ay si degdega u soo afjaraan islamarkaana ay sii wadaan howlgalka sida ugu dhaqsaha badanna looga saaro haraadiga iyo firxadka kooxda godadka ay ku harsan yihiin weli ciidamada saacadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo xoogan ayay sameeyeen meelo dhowra waxaa ka dhacay oo toga baalada ka mid a iska horimaadyo ka kooban dhinaca puntland ciidanka difaaca puntland khasaaro kooban ayaa soo gaaray dhinaca kalena khasaare ayaa gaaray laakiin weli ma cadda tirada rasmiga ah ee ilaa hadda ee kaga waxyeelowday howlgalka hadda waa gabagabo sanad ayuu kusii dhow yahay madaxweyne danina waxa uu si cad u sheegay in howlgalkan lasoo gabagabeynayo oo saacadaha iyo maalmahana soo aadanba howlgalkaasi maadaama hadda lasoo gabagabeeyey oo waa uu ku dhawaaqayba wuxuu yidhi meelaha ay kaga harsan yihiin firxadkooda in sida ugu dhaqsaha badan ee degdega ah loo soo afjaro yuu qorshuhu yahay haddaba haddaadna la soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan like garee muuqaalkan siina sheer garee si dad badan xogteena ay u gaarto